kulankan oo ka qabsoomay xarunta barasaabka gobolka Sool ayaa lagaga hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan gobolka Sool kuwaas oo ka soo hayaamay gobolada tiro badan waxaana ka soo qayb galay kulankaasi gudida abaaraha gobolka Sool wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland mas'uuliyiin ka socday degmooyinka iyo tuulooyinka iyo sidoo kale qaar kamid ah hay'adaha ka howlgala gobolka Sool kuwaas oo dhamaantood sheegay in lagu jiro xaalad abaareed oo degdeg ah dib loo dhigto laakiin ciidan qodis iyo wixii emergency oo biyaha ku saabsan iyo wixii kale soo fadhi karaba laga hawl mariyo oo la dedejiyo waana la isla fakartay cid allaale cidii ka soo shaqeysay iyo go'aamada la gaadhay iyo sida loogu heelan yahay waad ku mahadsantihiin waana idin mahadnaqaynaa dhibaatooyin adag baana ka jira biyo dhaamis waxaanu goobihi laga biyo dhaaminayay iyo ceelasha dhibaatooyin ka jira intaba barasaabka iyo hay'adaha iyo gudida taakulaynta gobolka warbixin baanu ka siinay warkiina waanu siinay waanu ugu mahadnaqaynaa shirkan ay qaban qaabiyeen barasaabka iyo hay'adaha iyo cidii ka soo qayb gashay waxaan halkan ka rabnaa insha Allah ta'ala inaanu runtii gaarsiino ummadda waxa ugu badan ee anagu aan la kulanay hadaan ahaan gudigan waxay ahayd abaar xagga waliba gaar ahaan biyaha iyo waraabka oo culayska ugu badan iyo hantida ugu badan aanu gelinay anagoo dhaaminay in ka badan 1800 boyodood walina aad moodo inaan fari ka qodnayn taasi waxay keenaysaa in baahida si kale loo bedelo oo la helo ceelal oo la helo riigag in la helo dhaamam waaweyn in la helo biyo dadku ay cabi karaan oo nadiif ah waana arinta anooga soo baxday markaanu aragnay dadka baahida haysa barasaabka gobolka Sool ayaa dhankiisa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka xaaladda abaaraha sidoo kalena baaq u diray ganacsatada in ay ka soo qayb qaataan gurmadka abaaraha oo kaalin buuxda aan kaga jirin taas waxay dadka tusaysaa in dadka halkan fadhiya ay yihiin dad u heelan ama diyaar oo mas'uuliyadii ay mudan u qaadeen ama ha noqdeen hay'ado madax bannaan ama ha noqdeen mataqaana gudiga taakulaynta abaaraha ama ha noqdeen mas'uuliyiinta gobolka inay ka run sheegaan oo ay taasina ay marqaatu tahay inay u taagan yihiin wax ka qabashada abaarta masiibada ah ee gobolka iyo guud ahaan dadka saameysay waxaan halkan ugu mahad celinayaa Ilaahay ka sokow hay'adda UNICEF oo aan u arko inay tahay hay'ad laf dhowr ah gobolkan biyaheeda wax badan runtii ka qabatay lana daba taagan markasta waxaan rajayn doonaa hay'adaha ay hawlahan qusayso iyaguna inay ka qayb qaataan si hore u ballan qaadeen annaguna waxaanu diyaar u nahay bismillaahi kariim inaan markasta u shaqeyno sida ugu fudud ama ugu daacsan ama Ilaahay nagu ogyahay waxaan halkan baaq uga dirayaa shacabweynaha gobolka gaar ahaan ganacsatada oo aad moodo in aanay dhagahoodu marnaba aanay maqlayn dhibaatada inta ay leegtahay ama baahiyaha jira oo aad moodo in baaqyada laga sii deynayo ama ha noqoto xafiiska gobolka ama ha noqoto masaajidada inaanay wali dareemin ama qalbigooda aanay ku dhicin dhibaato inta ay leegtahay Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC la saanad